بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسka maanta sida walaalku sheegay loo qoondeeyay wuxuu ku saabsiisan yahay aljaliis الصالح ama saaxiibka fiican ama mujaalasada la fadhiisiga dadka wanaagsan. sidaynu wada ognahay qofka bini aadamkii waxaa la yidhaahdaa biطabcihi aw biطabiicatihi wa ijtimaaci wa social. qofka bini aadamkii kama maarmo ciduu la xidhiidho, la sheekaysto, humuumtiisa iyo afkaartiisa la wadaago, wakhtigiisa uu ku qaato. kama maarmo baa la yidhahdaa waxa isdhexgalka iyo wada socodka loo yaqaano. bale waxaynu naqaanaaba inay jiraan xanuunno maanta la yidhahdaa maradu tawaxud, aloneness. maradu tawaxudku waxay yidhahdaan waa xanuun dadka ku dhaca oo nooc depressionka ka mid ah oo keensada qofka bini aadamka inuu dadka ka fiigo oo ka fogaado oo keli noolaado. qofkaasi waa qof xanuunsanaya bay yidhaahdaan. yacni mar hadduu qofku keli joogo oo ka fiiga dadkao dhan oo isku dayo inuu keli noolaado, waa nooc xanuunka ka mid ah. maadaama kelinimada inteeda noocyaadkeeda badan lagu calaamadiyey xanuunka, waxaad garanaysaa qofka dabeecadiisa fiicani ama wanaaggiisu inuu yahay inuu cid la noolaado, cid la saaxiibo, cid la socdo. si kale markaynu eegno xataa xeer ciqaabeedka bini aadamku uu dejistay waxaa ka mid ah waxay yidhaahdaan alxabsi alinfiraadiy. jeelka dhexdiisa jeel kalea kusii yaalla oo qofka jeelka loo taag waaye xabsiga ku jira, laakiin xabsiga ku rabshad bata ayay waxay sii geeyaan xabsi kaloo la yidhahdo alxabsi alinfiraadi. xabsi keligaaya oo aanad cid arkayn, cid maqlayn, cid la hadlayn, cid la noolaanaynin. ama mararka horebay dowladaha adadagi dadka badh kusii xukumaan qofka in la geeyo xabsi infiraadiya. yacni waxaad dareemaysaa in dadka lagaa fogeeya inay cuquubatay, punishment, cuquubo qof lagu ciqaabo inay tahay in qofka keli la yeelo. walidalik baa xabsiyadii waxaa laga yaabaa inaad aragto xabsiyada dad ku xidhan oo qof keligii xidhan oo keligiisa la hadlaya ama qaylinaya ama buuqay markuu hadal u baahday ama cid ula hadla ama cid ula sheekaysta uu waayey. dadka qaarkoodna way kuba waashaan marka xabsiyada noocaasiya lagu rido. taasi macnaheedu waxay tilmaamaysaa qofka bini aadamkii inaanu ka maarmin jaliis ama saaxiib ama cid uu la noolaado inaanu ka maarmin. waa min طabiicati اlbashar baynu leenahay. fi lqadam ama waayadii hore jaliisku inta badan wuxuu ahaan jiray mid keliya ama nooc qura. wakhtigan dambe casrigaasee jaliisku uu tiro badan yahay bay yidhaahdaan, companionku, saaxiibku. waagii hore jaliisku wuxuu ahaan jiray bay yidhahdaan mid two way communication lagula dhaqmo, mid adna aada raadayn karta isna ku raadayn karaa. taa macnaheed waxa weyaan qof bini aadam uu ahaan jiray inaad qof bini aadama la saaxiibto, la joogto, nolosha la wadaagtid, isna uu wax kuu sheego adna aad wax u sheegto, a wada xidhiidhaan, israadaysaan. waxaa kaloo jira bay yidhaahdeen jaliis kale, saaxiib kale oo isagoo ah bay yidhahdeen one way communication. isagunbaa wax kuu sheegaya, isagaa kula talinaya, isagaa ku adigu se waxba uma sheegi kartid. kaa one way communicationkee saaxiibka noocaasi bay yidhaahdaan laftiisay qaybiyaana midi waa saaxiibi saamit, waa ka aamusan. waxa la akhriyo dhami waa saaxiib bay yidhahdeen aamusan. waa buug, waa jariidad, waa majallad, waa waxaa la mutaalaceeya la akhriyo dhan. waayo wuu kula hadlayaa oo waxbuu kuu sheegayaa oo waxbuu kugu kordhinayaa oo caqligaagu tashkiilinayaa. qofka bini aadamkiiba maaha bay yidhaahdaan ilaa iyo maxay wuxuu cuno iyo wuxuu arkee maqlo ayaad ka samaysan tahay. maskaxdaadu waxay analyse garaysaa, waxa ay rogrogtaa
waa wixii ay maqashay ama se aragtee loo sheegay macluumaadka ku soo kordhay marka buuggu bay yidhaahdaan waa jaliis lidalik baa cabdillaahi bn lmubaarak ninkii la odhan jiray imaamkii a'immada muslimiinta ee waaweyn ka mid ahaa ayaa waxaa la yidhi waxay ku yidhaahdeen innaka tukhiru اljuluusa waxdak waxaad badisaa cabdillaahi ibnu lmubaarakow had iyo goor keli baad fadhidaa markaasuu cadhooday baa la yidhi ana waxdi maanaa keli fadhiista buu yidhi ana maca alanbiyaa'i waalawliyaa'i waalxukamaa'i waannabiyi waasxaabi war anigu waxaan la sheekaystaa la joogaa buu yidhi nebiyada iyo awliyada iyo dadkii saalixiinta ahaa iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii dabeetana gabay uu tiriyey moxamed ibnu zayaad alacraabi nin la odhan jiray buu tiriyo ah walii julasaa'u maa amilu xadiiثahum ulaban ma'muunuuna giiban wamashhada ida ma اجtamacnaa kana xusnu xadiiثihim muciinan calى dafci اlhumuumi muؤayida yufiiduunanii min cilmihim cilma maa madaa yacni gabay buu tirinayaa uu leeyahay anigu waxaan leeyahay saaxiibbo aan la fadhiisto oo aanan sheekadooda ka daalin oo caqli badan oo warka lagu aamini karo oo markay maqan yihiin iyo markay joogaanba dad saaxiib wanaagsana yacni maxaan uga jeednaa uun waxaan uga jeednaa meesha tan inaynu tilmaamino jaliisku inuu noqon karo jaliis saamita isna wuxuu kaloo noqon karaa jaliiskan casriga ah maanta ee raadiyow leh ee t v leh ee internet leh dadka barh baa kuwaa la saaxiiba qof baad arkaysaa t v intuu subaxii hor fadhiisto maalin dhan iska hor fadhiya saaxiibkiisi waa t v-ga qoladan unbaa wuxu sheegtaa ama kubad ha ka daawado ama filim ha ka daawado ama warar ha ka dhegaysto ama wuxuu doona ha dhegaystee waa jaliisu waa saaxiibkii isagaa wax ku akhrinaya idan waxaynu leenahay saaxibka waagii hore waxaa laga warrami jiroo qura saaxiibka kan two way communicationka ee labada dhinacba wada hadalku uu ka soconayo laakiin casrigan dambe saaxiibku anwaac buu yeeshay marka intaba wuu noqon karaa saaxiibku marka waxaa dhici kara inuu saaxiib shar wada yahay sawa'an kitaab ha ahaado buug ha ahaado t v ha ahaado jariidad ha ahaado internet ha noqdo qof bini aadam oo nool ha ahaado waxaa kaloo dhici karta saaxiib khayra inuu noqdo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina min annaasi naasan mafaatix lilkhayr magaaliqa lishar ibnu maaja xadiidku sanadka xasankaa ku warinaya si ay culammadu yidhahdaan dadka waxaa ka mida buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dad mafaatix lilkhayr ah furayaasha khayrka ah oo meeshuu joogo khayrun lagu hadal hayo khayrun layskaga waraysanayo wax wanaagsanun adduun iyo aakhiraba wanaag ka warramaya iyo duul buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam isla markaana ah magaaliq lishar waa furayaasha xidha sharkana oo agtooda ma soo maro ikhwatii fi lcaqiida markaa waxayn leenahay cumuuman saaxiibku waa ka qofka nolosha bini aadamkaa wax ka gediya diintiisa caqiidadiisa iyo dhaqankiisa walidalik baa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa qolo aakhiro calaacalaysa oo ka calaacalaya saaxiibo xunxun ay dunida lahaayeen wayowma yacadu الظaalimu calىa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca الrasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can اdikri bacda id jaaءanii wakana الshayطaanu lilinsaani khaduula ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyay waxaad dadka u sheegtaa maalinta uu daalimku gacantiisa intuu qaniino farta dhexda intuu ka qaniino uu odhan doono yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila jeclaan lahaaye bal maan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam jidkiisa maan raaco maalintuu ku calacali doono tamaniyi doono yaa waylataa laytani halaagaygow kaalay laytanii shallaatadaydee lam attakhid fulaanan khaliila bal maana ninka hebel la yidhaahdo saaxiib ka dhigane wuxuu ka calaacalayaabaa ilaahay aakhiro tilmaamayaa saaxiibkii adduunka markuu joogay kula saaxiibkaa waayo laqad adalanii can اdikri bacda id jaaءanii wakana الshayطaanu lilinsaani khaduula wuxuu iga lumiyey buu leeyahay jidkii
rabbi subxaanaه wa tacaala. idan waxaynu inagu jecelnay inaynu ka waranno saaxiibka, siiba saaxiibka wanaagsan inaynu ihtimaamku badan siino. ilaahay subxaanaه wa tacaala isagoo nebigiisii moxamed calayhi الsalaatu wasalaam la hadlayabaa rabbi wuxuu ku leeyahy wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajhah walaa tuطic man agfalna qalbahu can dikrina waاtabaca hawaahu wakana amruhu furuطa. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu nebiga u tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum. naftaada waxaad ku xabistaa baa alla leeyahy subxaanaه wa tacala, waxaad la joogtaa oo wakhtigaaga aad ku qaadataa oo aad saaxiib la noqotaa ayo maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajha, kuwa rabbigood caabuda gelin hore iyo gelin dambaba. kuwaa la joog baa lagu leeyahay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam. asxaabi sufa iyo saxaabadiisii wanaagsanaa iyo dadkii khayrka iyo cibaadada ku mashquulsanaa, kuwaa ku xidhnow baa ilaahay ku leeyahy nebigiisa calayhi الsalaatu wasalaam. kuwa raadcaynaya ilaahay wejigii un subxaanaه wa tacaala, oo gelin hore iyo gelin dambeba caabudaya, kuwaa la joogoo la saaxiib noqo baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. waxaa kaloo nebiga looga digayaa inuu ku xidhmo kuwa haafiliinta ee aakhira baan ogeyn. walaa tuطic man agfalna qalbahu can dikrina waاtabaca hawaahu wakana amruhu furuuطa. ha raacin baa ilaahay leeyahy oo ha yeelin warkiisa kuwaanu qalbigooda xidhnay, qalbigoodu haafilka noqday ee ilaahay dikrigiisa moogan ka dhoohan ee naftoodu waxay doontay raacay. idan waxaa laynoo tilmaamayaa kuwii nebi moxamed la yidhi calayhi الsalaatu wasalaam la dhaqan. qur-aanku wuxuu kaloo inooga warramayaa ahlu jannaa nin ka mid ah oo mid ay saaxiib ahayeen aada uga digtoonaayoo raaci waayey jidkiisii, oo dabeetana aakhira le qaala qaa'ilu minhum inii kana lii qariinun yaquulu ainaka lamina almusadiqiin aidaa mitna wakuna turaaba wacidaama aina lamadiinuun qaala hal antum muطalicuun faاطalaca fara'aahu fii sawaaءi اljaxiim. ilaahay wuxuu ka warramayaa subxaanaه wa tacaala jannada marka la galo mid ahlu jannaa ka mida baa saxaabadiisa kale ahlu jannaa wuxuu ku odhan doonaa, war heedhaha mid baan dunida markaan joogay lahaa ee odhan jiray war imika ma ilaahay baad rumaysantay iyo midiin baad raacday, mid warkaa igu akhriyaa jiray buu yidhi. oo ma waxaad rumaysantahay marka aynu dhimanno ee layna tirtiro in layna soo noolayn doono o layna xisaabi doono, ma saasaad rumaysantahay buu ugu odhan jiray buu yidhi markaanu adduunka joognay. ee bal maanta meeshuu ku jiray yaa ila soo eegaya buu yidhi ninkii. waa qolo ahlu janno ah oo nin ahlu jannaa ka midi uu leeyahay adduunka mid baa jiray saaxiib ila ahaan jiray oo ii odhan jiray ma aakhiraad rumaysantay iyo in dadka lasoo bactin doono lasoo saari doono iyo in la isxisaabayo ma warkaasaad rumaysantay. ee maanta ninkii meeluu jiro bal yaa ila soo eegaya. ilaahay wuxuu leeyahy faاطalaca fara'aahu fii sawaaءi اljaxiim. waa fiirsaday saa wuxuu ku arkay naarta jaxiime barhtankeeda isagoo galgalanaya, isagoo halkaa ku jira. dabeetana markaasuu wuxuu yidhi qaala tallaahi in kidta la turdiin, ilaahay baan ku dhaartay mar baad i halaagi gaadhay buu yidhi. markuu arkay da isba halkuu joogo ayuu wuxuu leeyahy rabbaan ku dhaartee mar baad i halaagi gaadhay, walowlaa nicmatu rabbi lakuntu min almuxdariin. ilaahay nicmadiisa haddii lala-ayay lama le kuwa meesha aad joogto lagu soo xaadiriya baa ka mid noqon laha. tan macnaheedu waxa weeyaan qofka bini aadamka ah saaxiibku raad badan buu ku leeyahay. saaxiibada qaarna xagga naartay ku wadaan, qaarna xagga jannada ayay ku wadaan. saaxiibkaasi ha noqdo baynu nidhi mid bashar oo lala hadlo, mid buug iyo kitaab oo la akhriyo, mid t v iyo la daawado, noocuu doonayo ha soo baxe. saaxiibku ima inuu saaxiib khayra yahay, insaan saalixo wanaagsan inuu yahay, kitaab wanaagsan oo adduuniya aakhire wax kuu faa'iideynaya inuu yahay. wax lala saaxiibo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaa ugu hanuun badan, waayo khayrun bay kuu sheegayaan. amase inuu saaxiibku yahay mid balaayiya shar kuu wada, albaabada naartun kolba mid kuu furaya,
xan iyo qurun iyo kudaafad iyo waxaan wanaagsan inuu kaaga warramaya ama novel iyo qurun qadhaadh iyo gabadh baa nin jeclaatay iyo waxaan khayr ku jirin oo tiro badan leh kuwa akhrinaya ama TV wuxuu kuu sheegaa ay tahay inta ugu badan leh shar ay tahay ayan kaan saaxiibkaagu ha noqdee saaxiibka qofka bini aadamkii waa inuu doortaa sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay xadiidkii saxiixeynka ku yaalla dadka inta badani taqaano inamaa mathalu ljaliisi saalixi wa jaliisi suu ka xaamili lmiski wa naafikhi lkiir nabigu calayhi salaatu wasalaam laba tusaaluu ka bixiyey saaxiibka wanaagsan ee meesha wanaagsan fadhiga wanaagsan loogu tagaa iyo saaxiibka xun saaxiibka xun wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin naafikhu kiira kiirku waa buufimadii dabka lagu buufin jiray marka farsamada tan birta laga shaqaynayo ama fortune-kan casriga aba dheh hataa haddaad doonto meelaha kan birta lagu tumo markaad tagto warshadahan xadiidka lagu sameeyo meelaha kan markaad tagto waxa yaallaa waxa weeyaan waa dab dambas iyo dhimbiilo duulaya iyo qiiq ka baxaya haddaad ninka shaqadaa haya aada shaqadiisa ugu tagto kula saaxiibto meeshuu shaqadaa ku hayay ama warshad ha noqoto ama farsamo yaqaan yaroo keligii meel fadhiya ha noqdee haddaad ugu tagto kaa is tidhaahdo la soo fadhiiso o la soo sheekayso dee waxa un weeyaan imaa in qiiqa iyo boodhka meesha ka kacaya uu ku soo gaadho ama dhimbiilaha ka duulaya inay ku soo gaadhaan oo marada kaa gubo yacni meel la fadhiista maaha waxba soo faa'iidi maysid saaxiibka wanaagsanna buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay kii gadayey miskiga yacni meel cutuur lagu gadayo wanaaga haddaad tagto imaa intaad fadhido inaad udug fiican iyo caraf fiican ka hesho iyo urudgoon amase inaad dee kaba gadato amase inuu wax ku siiyo kollayba inaad wax khasaaraynin wakhtigii aad meesha fadhiday baa ka muuqanaysa يعني نبي عليه الصلاة والسلام وحين قلت الماما يا مركا صاحب السيئات كهداد لا فريسته صاحب السيئات صاحب كشركة بدن له هداد لا فريسته إما إنه مشكلتك جرده أما أو كاغا شيكايو دغا كاوس كاغايو أما أو كتوسيو وحن كتوسيو يعني وحشرة بكو هرسيدية شركي سويري وهدو حن كاغا شيكايو بلاي هلكا كبخدا ama hebel ba halkan ka baxay ama kan baa jira warkiisa ugu yari agtaada ama se duul la maagay iyo wuxuu balooniga ku hordhigo aadnaad kolba mid darbayso yani wuxuu ku wada waxa weeyaan waa mushkiladoon saaxiibka se wanaagsani inuu ilaahay ku xasuusiyo subxaanahu wa tacaala inuu cilmiga ku anfaco kuu sheego mid adduunya mid aakhiro kuu doonaba ha ahaadee aqalu maa yumkin saaxiibka wanaagsan agtiisa xumahaad ka xishoonaysa inta aad la fadhido haddaanad xataa wax kale ka faa'idin inta aad la fadhido waxaad noqonaysaa qof xanta iska ilaaliya ama dembiga iska dhowra saacaadkaasaa xataa aakhira kuu nabadgelaya oo aanad mashkilad gelaynin idan saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xume wax la isku doorto maaha sidaa awgeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi warinayana saxiixa المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف قفكو وحو كسوغن يدقن كساحيب كيبا ليلي دينتو ودقن لكم دينكم ولي دين ودقن عقيدة له أو فعل له أو وحول بله نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحليا المرء على دين خليله قفكو wuxuu ku sugan yahay dhaqanka saaxiibkii saaxiibka wakhti haddaad siyaro geejiso marka dambe dhanun baa isula duulaamaysaan ama adaa xagga masaajidka u tuuri oo xalaqa cilmiga iyo khayrku ku xidhmi ama aduu xagga sharka kuu tuuri haddaad badsato oo adigoo meel fog sii socda unbaad is arki doontaa si awgeed buu nebi moxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu ku sugan yahay diintii iyo dhaqanka saaxiibkii ee midkiin ha eego cidduu saaxiib ka dhiganayo cidduu khaliil ka dhiganayo ha eego nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu leeyahy laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa ya'kul طacaamuka ilaa taqiy
war hala saaxiibin mid mu'mina mooyaane mid kale buu nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam. bini aadamka badhna macaamilo rasmiyaa idin dhex marta oo noloshaa wadaagtaan oo waxbaa qaybsataan oo waa isku xidhantiin oo haddaa kale maqantiin iyo haddaa wada joogtaanba waa is ogtiin. badhna nolol maalmeedka fudud ee inaad mar wax ka gadato ama mar u timaado amabaa idin dhex mara. cidda aad rasmiga ka dhiganayso ee kugu xidhmaysa waa inuu noqdaa qof wanaagsan. si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay laa tusaaxib ilaa mu'minan, war mu'min mooyaane cid kale saaxiiba ka dhigan, waayo ka kale maraduu kaa gubaya. qofkaan mu'min saadiq ahayn haddaad saaxiib ka dhigato sharkuu kuu horseedaya. walaa ya'kul طacaamaka ilaa taqiy, cunadaadana yuu cunin buu nebigu leeyahy calayh salaatu wasalaam mid alla ka cabsi badan mooyaane, yacni ku xidhan dadka khayrka badan leh. wuxuu kaloo nebigu leeyahy calayh salaatu wasalaam alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha i'talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf. imaamu muslim xadiidku warinaya ka horena abi daawud iyo tirmidaa wariyey. yacni arwaaxda dadku wixii isku noocaba way isa soo ugaadhsataa oo way isku xidhantaa. wixii wanaagsanina waa isku xidhmaan, wixii xumina dhankooda isugu xidhmaan, wixii aan isku mabda ahaynna waa kala boodaan. taa macnaheedu waxa weeyaan saaxiibkaagu intuu yahay marar badan bay adiga miqyaas kuu tahay diinkaagu intuu yahay, markaad garato cidda aad ku xidhantay inta ay tahay. ikhwatii fi lcaqiida markaa waxaad u baahannahay saaxiibka inaynu dooranno wanaagsan. hadduu yahay kaad nolosha la wadaagayso, nin iyo gabadh kuu doona ha noqdo, ee shariikaka fi lxayaa, hadduu yahay kaad jaarka la noqonayso saaxibi biljamb, hadduu yahay zamiilkaaga aad shaqo la qabanayso, hadduu yahay kaad shuraako la noqonayso aad wax ku darsanayso, hadduu yahay kaad waxbarasho la wadaagayso, hadduu yahay kaad sheeko wadaag la yeelanayso ee la fadhiisanayso, hadduu yahay ka kuu dhowe aada asraartaada iyo sirtaada iyo wax walba u sheeganayso, saaxiibkaagu waa inuu noqdaa mid aad dooratay. kow hadduu yahay kaad nolosha la wadaagayso, saaxiibka ugu khatarsani dee waa labada isqaba. labada isqaba waa laba qof oo noloshaba iyagu isku darsaday, keeda muuqadiyo keeda qarsoonba nolosha isku darsadeen. idan labadaa qof waa laba qof oo wax kasta iska kala og. gabadhuna ninkeeda si fiican bay u taqaanaa, yacni haweenaydu ninka qaba si fiican bay u taqaanaa aan dadku u aqoonin. ninkuna xaaskiisa si wanaagsan buu u yaqaanaa. waa saaxiibada isugu dhowe israadeeya. haddaad gabadh khayr badan guursato khayrkay kuu horseedi, haddaad nin khayr badan guursato khayrkuu kuu horseedi, haddaad gabadh shar badan guursato sharkay kuu horseedi, haddaad gabadh nin shar badan guursato sharkuu kuu horseedi. sida awgeed ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ragga waxaa la faray dumarka inay ka guursadaan mid khayr qabtoo diin leh. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadha 4 sababood baa lagu guursadaa, yacni sababaa lagu guursadaa 4 baa ka mid a xoolaheeda iyo reerkay ka dhalatay iyo xasabadeeda ama statuskeeda, yacni iyo quruxdeeda iyo diinteeda buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. laakiin nebigu tale wuxuu ku bixiyey inaad diinta iyo dhaqanka dooratid. waayo haddaad qurux ku guursato lacalla quruxda tani inaanay dhammaystirnayn ee dhaqan xumo oo dhami la socoto. waa qurux badantay waa se akhlaaq xuntay, waa qurux badantay waa se basari tahay, waa qurux badan tahay waa se musrifo tahay, dhaqaalo xun tahay, waa qurux badan tahay waa se rabshad badan tahay, waa qurux badan tahay waa se diin xun tahay. miaal aan idin siiyo. waxaa jiray nin taabiciya oo ay yidhaahdaan muxadis faqiiha buu ahaa, diin fiican oo weliba manhaju ahlu sunna ku sugan. nin se qurux badan ma ahayn bay yidhaahdaan. ninkaasi
in adeertiiyo qurux badan bay seeleen isagoo nin weyna cimraan ibnu xitaan waa nin bukhaari riwaayaadka axaadiista qaar ka mida uu bukhaari ka warinayo waa raggii wax ka warinayay caaisha iyo abi muusa alashcari iyo ibnu cabaas ayuu ardadooda ahaa taabici weyn buu ahaa in adeertii oo qurux badan oo xaruuriyada yacni khawaarij ka tirsan ayuu hungureeyey dabeetana wuxuu isiri in adeer tahay oo qurux badan intaad guursato madhabkan khawaarijka ay haysatana ka saaro diinta ku soo dara ahlu sunnaa keen si fiican aad u ahlu sunnayside cimraan ibnu xitaan markuu guursaday gabadhii isagii bay suldartay aakhirkii iyadii baaba khabiirad noqotay oo xaggiisa ku soo dartay cimraan waxay gaadhsiisay inuu ka mid noqdo khawaarijta waa ninkii tirinayay gabaygii markii cali ibnu abi aalib ibnu muljim markii cali la dilay kii khaarijiga ah salaad subax isagoo dad tukanaya uu midi geliyey cali markii la dilay dilkii cali ibnu muljim uu dilay salaad malaa inaanu ku jirin baaban u malayni calaa kulli xaal markii cali la dilay baa warku soo gaadhay dabeetana gabay buu tiriyey gabyaabuu ahaa shaacir weyn oo gabayga la yaqaana buu ahaa waa gabaynimadiisu waa ninkii xajaaj markay qolo khawaarija gabadh baa jirtay ghazaal la odhan jiray oo khawaarijta ka tirsanayd oo goobaha dagaalka tegi jirto oo dagaal badnayd shaybaan nin la odhan jiro isna khatara baa qabay oo khawaarijtu niman aad u dagaal badan bay ahaan jireen oo la yidhahdo xajaaj baa beri kabaa intay meel u gashay ka baxsaday oo ka baqay dabeetana waatuu xajaaj gabayga u tiriyey gabaygan macruufka la yidhaahdo asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun waa cimraan ibnu xitaanka ninka tiriyey cimraan ibnu xitaan cimraanka kani waa kii gabayga tirinayay markaasi isagoo cali dilkii la dilay ammaanaya leh yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ila liyabluga min da lcarshi ridwaana inii la adkuruhu xiinan faaxsabuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana kii cali dilay buu ammaanaya wuxuu leeyahay darbadii uu ku dhuftay nabarkuu ku dhuftay cali oo aanu wax kale uga jeedin waa darba taqi ka timi buu leeyahy ilaahay wejigiina uu ugu dhuftay cali isagoo raadinaya inuu raalli ahaanshiyaha rabbi ku gaadho waxaanan u malayn buu yidhi maalinta aakhiro kuwa ugu miisaanka weyn la aakhira inuu ka mid noqon doono buu leeyahy cali dilkiisuu ka dhigaya wax lagu janno taga inay tahay ninka kani waa ninkaa muxadidka ahaa ee faqiiha ahaa ee caaisha ibnu cabaas abi muusa alashcari wax ka dhigtay ee ardadiisa wax ka warinaysay qataada yaxya bnu abi kathiir ee ibnu siriin ayaa ka mid ahaa raggii isaga xadiidka ka warinayay laakiin gabadh qurux badan oo inkaar qabtaa heshay dabeetana intuu isagu is yidhi ahlu sunnaa ku soo dar ayaa isaga khawaarijta ku dartay to itixaanada waxaa la yidhi maalin buu aada u eegay isagoo cabaar eegaya ay aragtay markaasay tihi labadeennuba ahlu jannahaynu ka mid nahay markaasu wuxuu yidhi oo yaa kuu sheegay inaan ahlu jannaha ka mid nahay si aad ku ogaatay waxay tidhi dee adigana anaa laykaa siiyey buu yidhi ayay leedahay adigana anaa laykaa siiyey dabeetana fa shakarta markaa ahlu jannaad ka mid tahy yani gabadh qurux badan baa alla ku siiyo nicmadii alla ku siiyey baad ilaahay ugu mahadnaqday dabeetana saasaa tahay oo shaakir baa tahay bay tidhi anigana bay tidhi adaa ilaahay igu kaa itixaamay nin foolxun buu ahaa adaa ilaahay igu kaa itixaamayo fa sabartu bay tidhi anna waan sabray dabeetana labadeennu midna saabir weeyaan bay tihi midna shaakir weeyaan oo ahlu janna aynu ka midna gabadha tan quruxda badan leh cimraan ibnu xataan iyadaa ka tuurtay inuu ahlu sunno ahaado oo u saartay inuu noqdo maxay khaariji inuu noqdo min alkhawaarij inuu ka tirsanaado idan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay gabadha afar baa loo guursadaa maalkeedaa lagu guursadaa adoo hunguri kaa hayo xasabkeeda iyo reerkay ka tirsantay iyo statuskeeda ayaa lagu guursadaa quruxdeedaa lagu nebigu wuxuu ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati diini taribat yadaak ta diinta u saaxiibkaa guurso gabadhana sidoo kalea la yidhi
ragga inaanay dumarku kala aqoon bay u badan yihiin laakiin weliga waxaa la yidhi hadduu kuu yimaado caman tardawna diina wa khuluqa midaad diintiisa iyo akhlaaqdiisaba raalli ka tihiin waxaan uga jeedaa meesha tan saaxibku raadka uu samayn karaa waa kaa saaxiib fiican haddaad leedahayna jannaduu kuu hogaamin karaa saaxiib xun ama saaxiibad xun haddaad leedahayna naarta xaggeeduu kuu hogaamin karaa cimraan binu xataan isba waxaa khaariji ka dhigay waa gabadhaasi xun ee khawaarijta ka tirsanay idan ikhwatii fi lcaqiida waxaa aada u habboon qofku cidduu la saaxiibayo rag iyo dumarba inuu ilaaliyo inaad isku dayda inaad dooratid mid muuqaalkiisu uu ilaahay ku xasuusiyo dadka badh baa jira markaad u timaaddo aada rabbi xasuusanayso subxaana wa tacaala badh baa jira markaad u timaaddo khayrun kugu kaalmaynaya ama mid adduun ha noqdo ama mid aakhira ha noqdee badh baa jira markaad u timaaddo icwijaajkaaga toosinaya wax kaa qalloocanay hadday jiraan ku toosinaya badh baa jira markaad u timaaddo nasiixo wanaagsan talo fiican oo aakhiriya adduun baad ka helaysaa badh baa jira markaad u timaaddo aada macaasida ka xishoonayso oo aanad xumaha ku dhiiranaynin inta aad ag joogto kuwaa haddaad lala saaxiibto wanaag iyo khayr bay kuu hogaamin kutubta badh baa jirta markaad akhrido khayr aad helayso markaad akhrido tala ku siinaya kitaabka rabbi haddaad akhrido asaadse fahmayso qur-aanka haddaad akhrido nin rabbigii u warramayaa tahay qiyaas ninka rabbigii la hadlayo subxaana wa tacaala nin rabbigii la hadlayo oo waxu sheegayaa tahay markaad xadiidka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam akhriyayso waxaa tahay nin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu u sheekaynayo nebi moxamed baa wax kuu sheegaya oo wixii khayr kuugu jiray kuu sheegaya wax hore iyo waxa kitaabku ama buuggu wuxuu kaga gedisan yahay saaxiibku inta badan wuxuu la nooliyuu kaaga warramaa kitaabkuse waa dad aanad nolosha kula saaxiibteen ayaad la saaxiibaysaa qaaraad jeclayd oo aanad soo gaadhin ayaad la saaxiibaysaa abibakar baad la saaxiibi oo cumar baad la saaxiibi oo calaad la saaxiibi oo saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baad la sheekaysanaysaa markaad taariikhdoodii iyo historygoodii aad iyaga akhriyayso markaad xadiidkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam akhriyayso markaad qur-aanka akhriyayso waxaa lagaaga warramayaa dad aanad nolosha sooba gaadhin nebi muusead la saaxiibi oo yuusuf baad la saaxiibi oo dad khayr qabaad la saaxiibaysaa markaad bugaag cagsigooda akhriyayso ee lagaaga warramo dadka inta ahlu sharka ah ee lagaaga warramo film actor iyo kuwan yaryaree isqaaqaawiye kubadda cayaara iyo kuwan aflaamta matala iyo kuwa markaad taariikhdooda raadiso ahlu naarkaad baranaysaa dad badan oo ka mid a waxaad baranaysaa taariikhdii dadka xun oo dhan baad baranaysaa waxaad baranaysaa lagaaga sheekeynaya lagugu akhrinayaa dhaqan xumo dhammaanteed oo dhan idan kitaabkaa lala saaxiibaa laakiin kitaabkaad la saaxiibaysaa kuu yahay bay ku xidhantay walidaalik qoladan mukhaabaraadka ah waa iyadii dadku uu shuucinimada iyo ishtiraaki iyo waxa kana aadka la isugu hayay marka ay rabaan qofka inay ogaadaan qofkan hebeli siduu u fakeraa siduu u dhaqmaa waxyaabahay daraaseeyaan waxaa ka mid ah wixii uu akhriyey waxaa la raadiyaa taarikhdiisii librariga wixii uu buug library ka amaahday ama wixii uu buug iibsaday ama wixii uu buug akhriyey waxaad sawiri kartaa ninka intaasoo buugoo noocaasi akhriyay siduu u fakerayo waxaad garan kartaa wuxuu akhriyi jiray waxay u badnaayeen wuxuu xiisayn jiray ma nin bugaag taariikh akhriyi jiru ahaa ma social buu akhriyi jiray ma politics buu akhriyi jiray ma muxuu akhriyi jiray qofkani wuxuu xiisayn jiray aad garanaysaa wuxuu akhriyi jiray noocay u badnaayeen idan markay rabaan qofka inay analyze ku sameeyaan waxay baadhaan taariikhdiisii librariga iyo wuxuu akhriyey taa macnaheedu waxa weeyaan caqligaaga waxa foom garaynaya tashkiilka siinaya waxaa ka mid a waxaan aad baranaysa ee akhrinaysa ee maqlaysid ee dhegtaada iyo ishaada kusoo dhacaya idan waxay leenahay saaxiibkaagu hadduu bini aadam iyo inaad bini aadam saalixa doorataa mid akhriya adduun wax ku anfacayo wax kuu kordhinaya waa inaad doorataa
wayna tijaabisaa inta badan saaxiib wax ku dheer inuu noqdo. hadduu saaxiibkaagu buug la akhriyo noqonayo waa inaad doorataa buugga iyo noociisu waxa uu yahay. mid wax kuu kordhinaya waa inuu noqdaa, mid aan dhib kuga hayn waa inuu noqdaa. hadduu noqdo saaxiibkaagu t v aad daawanayso waa inuu noqdaa t v iyo brogram wax ku taraya. t v-ga inta ugu badani dadka maanta jooga in jaamacado wakti lagaga baxo wakti ka badan bay t v daawadaan. haddaad imika xisaabiso cimrigaaga intaa t v daawanaysa maxaad faa'iida? waxaa laga yaabaa kulli yoom ka ugu yar inuu yidhaaho warka yuu ina dhaafin oo 2 jeeroo wara uu dhegaysto, saacad buu hor fadhiyey. kii isagu kubadaha iyo cayaaraha daawanaya ama aflaamta daawanaya isaga dhaaf. kuwaasi waxaa laga yaabaa maalin iyo habeen kasta 3-4 saacadood inuu tago. ka waran jaamacada aad maalin iyo habeen kasta 4 saacadood soo dhigaysa. dad jaamacad gasho oo 4 saacadood oo waqtigaaga ka mid aad siiso, yacni waxaad doontaa diyaarin karaysaa, shahaadada ugu sarraysaad qaadan karaysaa. waktigii qofkani uu shahaado ku qaadanaya adiguna t v baad ku qaadatay. eesha natiija markaa bal qiyaas qofkii 4 saacadood waxbarasho geliyey, diin geliyey, cilmi geliyey, iyo qofkii 4 saacadood t v geliyey. maxsalada maxuu natiijadu noqonaysaa markaynu mid walba 5 sannadood kadib u xisaabino ama 10 sannadood kadib u xisaabino? kii 4 saacadood maalin kasta wax baranayey iyo kii 4 saacadood maalin kasta t v ba hor fadhiyey, labaduba 2 saaxiib bay lahaayeen. labadii saaxiib wixii ay ku akhriyeenna 2 manfaco kala nooca ka soo baxaya. akhwatii fi lcaqiida markaa waxaan leenahay saaxiibku waa inuu noqdaa kow dadka dhexgalkoodu haddaanay waxba kuu kordhinaynin gooni jooggaa dhaanta. haddaanu dadku wax kugu kordhinaynin inaad waxba xidhiidhkooda badin ayaa dhaanta, inta aad adigu wax ku kordhinaysa mooyaane inaad badsanin. walidaalika abu darda baa waxaa laga sheegaa lasaaxibun saalixun khayru min alwaxda waalwaxdatu khayru min saaxibi suu wamumli lkhayri khayru min asaakit wasaakitu khayru min mumli shar. saaxiibka wanaagsani buu yidhi keliduu ka fiican yahay, kelinimaduna saaxiibka xun bay ka wanaagsantahay buu yidhi. ka khayrka kuu sheegaya ka aamusan buu ka fiican yahay buu yidhi. ka aamusanina kan sharka kugu warramayuu ka wanaagsan yahay buu tilmaamaya. waxaa habboon markaa inaad dadka ahlu bidaca ah, dadka ahlu sharka ah, majaalista bidaca iyo khayr beelka lagu hayo, majaalista fadhi ku dirarka iyo warkaa lagu hayo inaad badsanin ama aanad tegin. inaad tagto majaalista dadka khayrka qabaa joogaan iyo meelaha wanaagga lagu hayo iyo khayrka lagu hayo, inaad tijaabiso inaad la saaxiibto cid adna wax kugu kordhisa adna aad wax ku kordhin karto. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiid waxaa laga warinayaa inuu yidhi man samica bاdajaali falyan'a canhu. ninka dajaalka maqlaa ha ka fogaada buu nebigu yidhi, yuu xaggiisa u kicin. haddaad maqasho dajaal baa halkaa ka soo baxay xaggiisa ha qabanin buu nebigu yidhi. faina الrajula yaأtiihi wahuwa yaxsabu anahu muؤmin famaa yazaalu bihi bima macahu min الshubhi xataa yatabicahu. waxaa dhacaysa inuu ninku uu u tago isagoo mu'mina, dabeetana siduu shubahiisa iyo wixiisa ugu akhrinayo uu diinta kaaga saaro. dadka khayr beelayaasha haddaad la saaxiibto maalin walba siduu inshara kuugu sheegayo khayrku kaa tuuraya. dad badan oo malaaxida noqday baa la yidhaha markii hore saalixiin bay ahaayeen, laakiin dadkii ay la saaxiibeen ayaa mushkilada tan u geystay. saaxiibada kuwaan khayrka qabina ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin cadow ila almuttaqiin. saaxiibadii maalinta qiyaamo barhba barhka kale cadow bay u yihiin kuwii ilaahay ka cabsaday mooyaane. majaalista khayr kale iyo meelaha khayrka loogu tago haddaad tagto waxaad faa'iidaysaa waa khayr.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث الصحيح قلت المامية دول مجلس فريستي وإلهي ذكر جيس أخريي ودبتنا يقو وردينيه malaa'igtu ay u timaado oo malaa'igtu markay u timaadana malaa'ig baa jirta tawaafta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska saxiixa ku soo aroray uu tilmaamayo dabeetana iyagu waxay tagaan uun meeshii ilaahay lagu xusayo waxay u yimaadaan duul ilaahay xusayo duulkaasay soo dul degaan rabbaa weydiiye subxaana wa tacaala maxay qabanayeen isagoo og waxay qabanayeen waxay dhaha ilaah waa kuu tasbiixsanayeen oo waa takbiirsanayeen subxaana allah allahu akbar alxamdu lilah warkaasay akhrinayeen bay yidhaahdaan miyay arkeen baa ilaahay yidhaha subxaana wa tacaala maya kumay arag bay yidhaahdaan hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen ilaah weynidaada iyo mahadnaqaaga way ka sii badin lahaayeen bay yidhaahdaan maxay weydiisanayeen baa rabbi yidhahda subxaana wa tacaala waxaa la yidhaha ilaahu jannadaaday ku weydiisanayeen miyay arkeen may hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen waxay yidhaahdaan hadday arkaan jannada raadcadeeday badin lahaayeen oo xirsigeeda waa sii tiro badin lahaayeen maxay iga magan gelayeen waxay kaa magan gelayeen ilaahay ow naartaada naga badbaadi bay lahaayeen miyay arkeen may hadday arki lahaayeen maxaa dhici lahayd waxaa dhici lahaa bay yidhahdeen ilaahu way ka sii carari lahaayeen oo naarta inay ka fogaadaan bay aada u tijaabin lahaayeen rabbi subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisaasi wuxuu ku yidhaahdaa faushhidukum annii qad gafartu lahum dadkaasi intay isu yimi ilaahay xusayey waxaan markhaati idinka yeelay inaan dembigooda dhaafay baa rabbi yidhahdaa subxaanahu wa tacaala malaa'igtaa markaa waxay tidhaahdaa ilaahayo waxaa la joogay fulaanun laysa minhu ninkii hebel la yidhahdaa isagu kuma jirin qolada tan wardinaysay ee wuxuu u yimi innamaa jaa lixaaja dan kalu lahaa rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu ugu jawaabaa hum اljulasaau laa yashqaa bihim jaliisuhum waa duul baa la yidhi kala fadhiistaana aanu hoogin isagana dembigiisa waan dhaafay baa ilahay yidhaha subxaana wa tacaala yacni dadka saalixiinta iyo majaalista cilmiga iyo dikriga lagu hayo haddaad iska fadhiisato waxay kuu noqonaysaa dembi dhaaf barakadoodaa ku soo gaadhaysa majliskan saalixa ah barakadiisaa ku soo gaadhaysa oo maadaama ay majliskani uu yahay majlis ilaahay lagu xusayey ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku abaalmariyaa inuu dembigooda dhaafo idan qofka saaxiib wanaagsan haddaad yeelato waxaa dhici karta la fadhigiisa in ilaahay dembigaaga ku dhaafo sida kuwani dhacday saaxiibkaaga wanaagsani la fadhigiisu xataa inuu ku anfaco oo uu kaa anfaco in ilaahay dembigaaga dhaafo saaxiibka wanaagsan la fadhigiisii maadaama uu nabigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu leeyahay hum اljulasaa waa duul kala fadhiistaana aanu hoogaynin nin reer miyaa nebiga u yimi calayhi الsalaatu wasalaam oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow qiyaamihii waa goorma qiyaamuu dhacaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiisku saxiixeynka ku yaala wuxuu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wamaa acdadta laha oo maxaad aduu qiyaama u diyaarsatay goortuu dhacaya iska daayo berri hadduu dhacyo hadduu saa dama dhacee adigu maxaad u diyaarsatay buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi wax badan oo camalo umaan diyaarsanin ilaa annii uxibu اllaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay buu leeyahy dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam innaka maca man axbabta kuwaad jeceshaad ma coodatay yacni qofku majliska uu jecel yahay iyo dadka uu jecel yahay inuu la fadhiisto waxay u badan tahay aakhiro kuwaana in lagula soo xaadiriyo hadday shaqadaadoo dhammo noqoto kubadda inaad daawato iyo kubadda aakhiro miyaad jeceshahay in kuwa kubadda lagula soo xaadiriyo hadday shaqadaadoo dhamme aflaan inaad la fadhido iyo kuwa noqoto miyaad jeceshahay kuwa in lagula soo xaadiriyo shaqadaadoo dhamme fadhi ku dirir iyo meel dad lagu xamanayo muslim lagu laynayo inaad ka warantaa tahay miyaad jeceshahay in kuwa lagula soo xaadiriyo aakhiro qofku wuxuu la soo xaadiraa maca man axbab cidda wanaagsan ee saalixa raacistiisa cilmaa laga faa'iida
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا نبي موسى محوك لها خضر وأرانك الراع باكو الراعة سيو هنون فائدة يستبوا الرباين الراعة إذن صالحين تخير بات كهليسة إلهي بات دنبقا كل عفا يلا فردقوه دين بيكو شيغيان wax adduunkaaga anfacay kuu sheegayaan waxa aakhiradaada anfacay kuu sheegayaan waxa habboon markaas ilaahay bay ku xasuusinayaan abi bakar waqtigay noloshu ku soo adkaatay ee godka ay ku jireen ee ay soo ciidankii raadinayay dul marayay ee uu yidhi hadday midkood gomadiisa eega ilaahay rasuulkiisiyo wayna arkayaan ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أبو كيري حادو ما لين أبي بكر لبر ربي قد صدح كيو كالمين أيه إلهي بحسوسيه سبحانه وتعالى أبو بكر وادقي وإلا بي بحيوك ورميونا يعني صاحب كاغا وناكسني إلهي بكو حسوسيني سبحانه وتعالى صاحب كاغا وناكسني مرايد بكو نقريات سكو أكتو نبي عليه الصلاة والسلام وحولي المؤمن مرآة أخيه حيث أبو داود باورينا إياه عراقي ابن حجر بوا حسن بيلين مؤمنك ومؤمنك كلام مرايدي سوسكف يريه مرايد هذا هديت مرايد قلوعا هذا قلوعا بعد كده حموقنس مرايد هذا هدي مرايد وناكسنت هينا وناك وكتوسينيه haddaad qof saalixa la saaxiibto ama qof wanaagsan la saaxiibtid xumuhu kaa reebaya samuhu ku faraya wanaag oo dhan buu ku tusinaya haddaad la saaxiibtid qof xunna shar oo dhan buu ku tusinaya waxaan markaasi si kooban ugu soo koobaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ina leeyahay وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت بالليل الذين يخوضون في آياتنا هذا دركته كوا آيات كيغا اسكد بالنا يا وحكا شيغيا دينته وحكا شيغيا كتشي سبا إلى هيري حتى يخوضوا في حديث غيره إلى يوكل أي شيء غير هدو الشيطان وحكوا إلا وسيي فلا تقعد بعد ذكرى بيلهير هذا بعد عدينا مجلس فريسته أود بيتنا بلابو حن إيو قرن إن لقوا الرمو اسكاك عبا إلهير سبحانه وتعالى هديب الشيطان ومركو إلا وسيي مركو وهو الرئيسات حصوصته ككعبا إلهينا ليه سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث بإلهير نبي محمد قل ضدك واحد قلت هذا لا يستوي الخبيث والطيب واركوا حن يكوا وناكسني مصر ندب إلهي سبحانه وتعالى كوا حن يكوا وناكسني مجلس كاغا هذا يكوا حمي فرستان أبي طالب يا نار تجي حديثك صحيح وحط المامية أبي طالب بركي أي نفته يسيب النبي قويم عليه الصلاة والسلام وحكى له يمي أبي جهل يكوح خلا الله صعطه نبي محمد باو حكويري عليه الصلاة والسلام هذا يو قل لا إله إلا الله نه لا إله إلا الله كلمة أنا آخره إلهي سبحانه وتعالى هرتي سكوه ضوضه أبي جهل ودنا عنك فرديا وحليه هاي أترغب عن ملة عبد المطلب أبي طالب مياد إلا بيس دينتي عبد المطلب ما هو ويد إن دينتي هيستين بات كتجيسه آخر كي أبي طالب وحولي ملة عبد المطلب أقول منايا هو دينتي سيمان هاي سنايا نبي قوح الشيخ عليه الصلاة والسلام من آخر أهل النار كوكمديه لا بك بوضع النار أنت اللي قليو إن مضحة أي كفش فشورم دون تومس كحد كلايلك كباها سي نارتا إن هلكن كبغبغلين دونت أبي طالب يا نار تجي صاحبك ساحن أبي جهل بقى كم انتضي إنه النار تكوه بصدى
ووقتي نفتك بحيث أنتو دول فريستي إذن إلهي وحينا لا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وأركتش سبا إلهي إلي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عمن تولى عن ذكرنا كو إلهي حسكو ذا كتشيستي أدنى إسكاكتشيسو هلا فريساني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هو عننا با إلهي سبحانه وتعالى كو ظلمك السمائية قل هذا هلا فريساننا والركون يوين كل عيننا كو الله دكتان وايو فتمسكم النار با إلهي نار با إذن هليليس إذن تابانيسا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين آخره إن على عشما هو كبير تكوى ورندونا أنا يا أديك ما بعد المشرقين نوتشران أنت عدد كدعيك صباحي سوتشران لك إلهي سبحانه وتعالى أنت كور ربي أنبيادي شهدادي صديقينتي صالحينتي أي ربي وحليه وحسن أولئك رفيقا كوا أصبح صاحبنا ما ونكسنا ديبا إله إليه سبحانه وتعالى وعن كسو كوبا يا مركا إخوتي في العقيدة قف كستو بنا آدمي كلي نولان شيو عقاب بيكوتي كلمة نولان كرو كمان مارمو عيدو كحدمو وهي كلي نولان شيو وحنو دي وعقوبة محكمة دو أيدتك كو حكومان والحبس الانفرادي كمان مارمو عيدو لا شيكايستو عيدو همومتيسا iyo warwarkiisa iyo walaaciisa u sheegto ciidu waqtiga la wadaago ciidu nolosha la wadaago haday tay guri uu sameystay iyo reer iyo xaas haday tahay shaqo iyo la noolaanshiyo haday tay jaarnimo iyo cid la dago nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka waramay nin 99 qof dilay oo dabeetana uu yimi nin zaahido meel fadhiya oo intuu yiri war tusiya qofka cilmi badan leh la tusiyay nin wadaado meel iskaga cibaadeysanaya oo yiri war 99 baan dilay toobad ma leeyahay oo dabeetana uu tilmaamay inaan toobadina jirin isagiina madaxu ka jaray boqol buu dilay dabeetana wuxuu yiri war dadka cidda u cilmi badan ay tusiya waxa lagu yiri hebel baa cilmi badan oo tagu yimo wuxuu leeyahay war toobad ma leeyahay boqol baan dilay wuxuu ku yiri oo ilaahi subhanahu wa ta'ala albaabadiisa ya xira yani toobad waad leedahay laakiin markuu u sheegay inuu toobad leeyo wuxuu kala siiyay talatii uu fiicnay oo ah meesha dadka fiican joogaan inuu qabto oo la digo wuxuu ku yiri war magaaladan aad joogto dad xun mooriyaan iyo kuwa ilaahi subhanahu wa ta'ala aan caabudin iyo gaal baa degan iskaga tag oo qaba maxay magaalo heblaaya tag buu yidho waxa degan dad saalixiin kuwa intaad u tagto iyaga ilaahay la caabud subhanahu wa ta'ala yani jaarka fiican xaaska fiican kitaabka fiican programka fiican saaxiibka fiican intaasiba aakhira iyo adduunba wax bay ku tarayaan xaaska xun ama ninka xun jaarka xun beledka xun kitaabka xun TV-ga xun wax allaaliya wixii noocaas iyo shar wadana aakhiriya adduunba waa ku seejinayaan oo waa dib yeelanaysaa idan qofka mu'minka ahi waa inuu doortaa saaxiibka wanaagsan وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزا الله خيرا شيخنا مصطفى حاج إسماعيل محاضرة آدك قيم كوءة ونسو جيديي إلهي سبحانه تبارك وتعالى وحن ويدي سنينا إنه نقدقه كوي مقلكنا عمل فله إساقنا وحن إلهي ويدينا سبحانه تبارك وتعالى